السلام عليكم أصحاب شرفت لي kusoo dhawaada maqaal cusub aan kaga diyaarinay airport weyn qaaradda Yurub kaasoo dhawaan laga furay dalka Turkiga ee magaalada Istanbul. Airport-kan uu furay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan kaasoo ay ka soo qayb galeen wufuud ka socday 50 dal. Airport-kan uu noqonayo 10 sano kadib airport-ka ugu weyn adduunka. Intaan maqaalkeen u guda galin waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saartaan kadibna gambaleelka taabataan si ay soo gaaraan wax walba cusub oo soo dhigno. Nazim'de zulme teslim olan Fatih olur, Mehmet olur her doğan. Furitaanka garoonka cusub ayaa lagu soo beegay sanad guurada 90-sanaad ee aasaaska Jamhuuriyadda Turkiga iyadoo xarigga ka jiray madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuuna ka mid yahay mashaariicda waaweyn ee Turkiga ku gaariyay qorshaha casriyeynta dalkaasi ee 2023. Xafladda furitaanka garoonka cusub ee Istanbul waxaa ka qayb galay madax ka kala socota ilaa 50 dal oo dunida ah. Waxaa dhismaha garoonkan ku baxay lacag dhan 7.2 bilyan oo dollar wuxuuna leeyahay laba dhabo oo diyaaraduhu ku cararan oo mid walba dhererkiisu yahay 3750 ilaa 4100 mitir iyadoo xilligan ay sanadkii ka dhoofi doonaan 90 milyan oo qof wuxuuna awood u leeyahay in la dhigo diyaarado gaari 347 diyaaradood halka baabuur gaari 18,000 oo ay markiiba istaagi karaan goobaha loogu talagalay. qaabka loo naqshaday garoonkan ayaa qaab soo jiidasho leh asagoo ka mid noqday garoomada ugu quruxda badan caalamka wuxuu noqonayaa garoonka koowaad ee magaalada Istanbul iyadoo markii hore ay jireen garoomada Sabiha Airport, Sofia Airport, Atatürk Airport iyo sidoo kale garoonkan cusub ee Istanbul New Airport. Yoktur Nazim'de zulme teslim olan Fatih olur, Mehmet olur her doğan. Kutlu sevgiden emanet duan Güner Tuğrul bugün Tayyip Erdoğan. Kutlu sevgi. Marka dhismaha garoonku dhamaado 10 sano gudahood wuxuu adeegi doonaa 200 milyan oo musaafiriin ah halka uu yeelan doono 8 dhabo oo diyaaradeed isagoo markaas noqon doona kan ugu weyn caalamka oo laab ka weynaan doona garoonka hadda ugu weyn adduunka ee Hartsfield Jackson ee gobolka Atlanta dalka Mareykanka. Yoktur Nazim'de zulme teslim olan Fatih olur, Mehmet olur her doğan. Kutlu sevgiden emanet duan Güner Tuğrul bugün Tayyip Erdoğan. Kutlu sevgiliden emanet duan Güner Tuğrul bugün Tayyip Erdoğan. Şimdi hasat vakti milletin devamlı vakti birlik olmanın tam vakti. Haydi Türkiye milletinin lideridir Erdoğan. Erdoğan şahlanır sen dik durdukça bu vatan. Bu vatan varlığına müjdeler senin atan. Senin atan razı olsun senden herden yaradan. Yaradan razı olsun yaradan. waad ku mahadsantihiin daawashadiina asxaabta sharafta leh haddaad ka hesheen maqaalkan like noo saara comment inoo bixiya si dhiirigelin noogu noqoto.